dhalinyaro ku libisan tuutaha ciidamada gorgor sheegana in lagu soo tababaray dalka Turkiga si ay uga mid noqdaan ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed ayaa lagu soo bandhigay magaalada Gaalkacyo. Puntland oo ciidankan ku soo bandhigtay magaaladaasi Gaalkacyo ayaa waxa ay sheegtay in iyaga si iskood ah ay uga soo goosteen dawladda dhexe ee Soomaaliya, soo dhaweyn wanaagsanna ay u sameysay Puntland oo deegaan ahaan ay ka soo jeedaan ciidankan. qaar ka mid ah ciidamada sheegay inay ka soo goosteen ciidamada xooga dalka Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay inay u adkeysan waayeen dawladda federaalka oo ay ku eedeeyeen in musuqmaasuq ay wado iyo ku turkfal awoodeed sida ay hadalku dhigteen. magacaygu waa Maxamed Yuusuf Maxamed, darajadeedu waa xidigle Maxamed Yuusuf Maxamed. waxaan ka tirsanaa ururka ciidanka xooga dalka. haddana waxaan u soo noqday dalkaygii inaan u shaqeeyo, waxaan soo bartay inaan u faa'iideeyo, waxa weeye waan ku kalsoonaa. bismillaah, magacaygu waa Cabdiraxmaan Jaac xidigle Cabdiraxmaan Jaac Muuse. waxaan ka mid ahaa saraakiishii oo ciidamada Turkisom oo ku soo tababartay dalkaas Turkiga. markaanu aragnay caqabad xumada ka taagan iyo midabkoor ka taagan federaalka, waxaan u go'aansanay in aan wadankeeni aan ka tagnay aan u shaqeyno. waan u shaqeynaa ilaahinkiis. bismillaahi raxmaani raxiim. ilaahay baa mahad iskale soo kaaya keenay makaamkan quruxda badan. xidigle Bishaar Cabdullaahi Cali Nuur ka soo baxay kulliyadda Turkisom, ku soo bartay dalka Ismiir ee dalka Turkiga, ka soo baxay dugsiga la dagaalanka argagixisada. markaan ka soo baxnay waan soo dhameysanay shamcadeedii aan u aadnay. waxaan ku soo noqonay Muqdisho. anigu gaar ahaan waxaan joogay wasaaradda gaashaandhigga. dhalinyaradii markaa dalka wuxuu soo bartay oo Soomaalinimadu meesha geysay. de qofkuna waxaa fiican inuu sharaftiisa dhowro oo sharaftiisa waxba siisan. waxaan hadda u soo noqday oo halkaan u imid inta iga hooseysa oo dhalinyaradeedii aan wax soo wada baranay, aan dugsiyada ka soo wada baxnay inaan u faa'iideeyo iyo intii gobolkaygu la nooleed. gaar ahaan waxaan ku dhashay Gaalkacyo. aabahay wuxuu ahaa nin booliska oo sargaala. ninkii waxaan ahaa ku soo bartay meesha la dumiyay hadda Kambo sida loo yaqaan. marka waa dareemaysaa qofku marka uu yimaado gurigiisii waxa ka soo kaxeeyay meesha uu ka yimid. marka sharaf ay tahay inaan ku soo noqdo gurigayga hooyo, inaan u faa'iideeyo dhalinyarada yarka oo ari iga dambayso oo hadda ciidanka ku soo biiray, iyo in aan ka qayb qaato dibdhiska Puntland ee ciidamadu ku sameynayaan. wasiirka ka tirsan dawlad goboleedka Puntland sida kan amniga, maaliyadda iyo gudoomiyaha gobolka Mudug Xasan Yare ayaa sheegay in wax lagu farxo ay tahay is soo dhiibitaanka ciidankan ayna difaacan doonaan deegaanadooda sida wasiiradu ay sheegeen. waxaa kaloo ay baaq u jeediyeen saraakiisha iyo ciidamada kale ee ku jira federaalka kana soo jeeda Puntland inay ka soo tagaan dawladda dhexe. saraakiil dhalinyaro ah oo raggii ku soo tababartay ah wadanka Turkiga oo aqoonta ciidanka fiican soo bartay oo lagu soo biiray oo dib ugu soo laabtay dalkoodii. waa u mahad celinaynaa iyaga iyo dawladihii tababarayba. iyagana aad baan u mahadsantihiin. waxaan fariin u dirayaa aan uga faa'iideysanayaa munaasabadatan dhammaan saraakiisha iyo saraakiil xigeenada fursadda u helay iyo dableyda inay ka faa'iideystaan tababarada noocaas oo kale, inay galaan, inay ka mid noqdaan ciidamadii qaranka Soomaaliyeed. waxaan u sheegaynaa albaabka iyagu inuu u furan yahay, inay iman karaan Puntland, inay difaaca ka qayb geli karaan, inay saraakiisha Puntland ka mid noqon karaan. Soomaali oo dhan meeshay doonaan ka soo jeedaan inuu albaabku u furan yahay. maxaa yeelay annagu waxaanu aaminsanahay hal cadow inaynu leenahay, cadowgaasna inuu yahay argagixisada. inay ka mid noqdaan saraakiisha ciidamada dawladda Puntland, inay ka mid noqdaan saraakiisha hananaya ciidamada waxa ahaanta saraakiishaas dhexe kabtan laba xidigle waa ciidamada ragga hanta. waan inta ugu muhiimsan annagu aan raadinaynay. maanta wixii ka dambeeya tani ciidanku waa joogaa, waa la idin magacaabayaa, shaqooyinkii qaban lahaydeen baa la idin magacaabayaa. cilmigii iyo wixii aad soo barateen baa la rabaa inaad dadka u faa'iideysaan. ma jiro war dawladda Soomaaliya ka soo baxay oo ay uga falcelinayso in ciidan ka tirsanaa dawladda ay u goosteen dhanka Puntland iyo Somaliland oo isbuuci hore soo bandhigtay saraakiil ay sheegeen in dawladda dhexe ay ka soo goosteen kuwaasi oo ka tirsanaa ciidanka Danab. Maxamed Yaxya Jino, warbaahinta Nation, Muqdisho.